markutaan adaa degay maanka wadnaha dacalkiisa darmaa ku taala dibnaha qosolkooda waxaa tahay daw sababta ka dambaysa. allahu akbar. walla aniga jacaylkii ahaa intuu qabtay ugu qaangaare way ugu dhex qubaysana ama nafteeda jeclaado ama odagayga jeclaado ama caruurteeda jeclaado jacaylku wuu sii badanooyaa. aad iyo aad ay mahadsantihiin daawashadiina, dhiirigelintiina, hadaladiina wanaagsan ee aad markasii soo qortaan waa iga mahad celinayaa. anuu inii salaamin salaamu calaykum ayaan war igu bilaabay. sidee tihiin? fiicantiin? caafimaadkiina ka warrama. islaanta waa ujeedaan saaka hadde ujeedaan waa taas islaanta saakay saas u labisatay. maalmahan guriga ayaan joogay, howlo fara badan ayaan qabanayay, guri kama bixinin. maanta ayaa waxaan go'aansaday inaan kafe isla soo cabno oo nafteyda waqti soo siiyo, oon soo sheekaysto anigoona waxba lacaga soo isticmaalin, waxba shuubina soo samaysan. way baryaan dama farahan ka waashay ayaan waxaan rabaa inaan suleeqa la kulmo, maybe inaan muuqaal qurux badan isla soo duubnood aragtaan. laakiin taana bixin ka hor baa meeshaan anigoo ku labisanayo baa waxaa igu soo dhacday ereygaas aad uu muhiim u yahay. aniga wax qalbigii ku soo dhacaan markasta buugaan qaataa waan qoraa. abwaan ma ihi, laakiin wax igu soo dhaco waan qoraa inta badan. soo marka ereyga igu soo dhacay ayaan meel ku qoray. waxaanaan go-aan ku gaaray ereygaas inaan soo duubo oo in soo hordhigo. ereygaas waxaa waaye shaqsiyadda. waxyaalaha aan bartay ee aan nolosha ka ogaaday ee gabarnimadeydii aanan ogeyna waxaa kamid ah shaqsiyadda qofka biniaadanka uu leeyahay. markaana gabdho dhalinyaraa haddaan berigaan guursanahay dadka kaamka gula jira waa waxaan dhihi jiray nin aan 10 sharuudood lahayn ma rabo. laakiin 10 sharuudood kuma aysan jirin mar raba. waxaan rabaa qof naxariis badan, qof shaqsiyad wanaagsan mis ku jirin. laakiin waxaa kamid ah nin balwadna ma rabo, nin saan adiga waxyaalo badan. wixii 4 qodob kamidana waxay ahayd qofka sidoo Ilaahay u sameeyay iyo quruxdiisa ay ku jirtay. laakiin maanta markii aan garaadsaday waxyaalo badan aan ogaaday ayaa waxaa ogaaday inaysan quruxda iyo hantida iyo lacagta iyo qabiilka iyo qofka boodigiisa sidoo egyahay inay ka muhiimsan tahay qofka shaqsiyadiisa iyo naxariistiisa iyo diintiisa. of course qof diin la waa rabay oo qofan diin lahayn wax kuma darsan, laakiin haddana shaqsiyadu meesha iguma jirin. shaqsiyadda ama nin ha ahaado qofku ama naag ha ahaado, qofka kaa shaqsiyadda wanaagsan weligaa ma gaaraysid. shaqsiyadda wanaagsan aadayo waa dabciga qofka bini'aadamka dabciga Ilaahay siiyay ayuu ku meel maraa. qofku markuu shaqsiyad wanaagsan leeyahay weligiis ma bedelo, baahidu ma bedesho, dharagtu ma bedesho, quruxdu ma bedesho, wax kasta ma bedelaan, meeshiisu unbuu taagnaada. laakiin qofka markuu shaqsiyad lahayn noloshiisana waxay ku bees garaysantaa waxa uu markaas helo oo gacantiisa ku haysto ay shaqsiyadiisa ku bees garaysanta. hadduu shalay ku yaqaanay ood isla soo jabteen ood isla soo mataqaanaa waay aragteen, maalinta uu hanti yeesho ama maalinta ay saaxiibad fiican ay hesho ama maalinta ay qofkan kula socda dantiisa kaa gaar uu kaa dhaqaaqa. laakiin qofka shaqsiyadda wanaagsan loo weligiis kaama tagaayo. qofka shaqsiyadda wanaagsan loo ma awoodo inuu qof bini'aadan hadal qaldan yiraa. qofka shaqsiyadda wanaagsan loo waa qof markasta dadka bini'aadanka u rajeeya khayrka. markaad shaqsiyad wanaagsan leedahay waxaad tahay qof aad u wanaagsan. qof waxaa jira shaqsiyadda wanaagsanna waa qof dulqaad badan, waa qof samir badan, waa qof dabci jilcan leh, waa qof ummaddu u siman tahay. I don't know sida aan ku sawiri karo shaqsiyadda wanaagsan. gabdhaheena aan weli guursan waxaan dhihi lahaa qofka aad guursanaysaa shaqsiyadiisa ka fiiriya. weligiis qofka shaqsiyadda wanaagsan isma bedelo. weligaa waxaa raastaa qof shaqsiyad wanaagsan, ama saaxiib ha kuu ahaado, ama walaal ha kuu ahaado, ama ninkaaga ha ahaadee. qofka shaqsiyadda wanaagsan weligaa garabkaada ma baneeyo, weligaa wuu garab taagnaanaya. marka waxaad raastaa qofka shaqsiyadda aduguna noqo qof shaqsiyad wanaagsan. shaqsiyadda wanaagsan wax loo dhasho waaye. qofku markuu shaqsiyad wanaagsan sidiisa bini'aadan waa qof nolosha og. wallaahi markaad qof shaqsiyad wanaagsan noqotid waxaad noqonaysaa qof aaminsan in wax kasta ku dhici karaan. waxaad noqonaysaa qof aan isla weynayn oo kibir badnayn oo mutakabir ahayn. waxaad aaminaysaa awoodda Ilaahay iyo awoodda mataqaanaa Ilaahay ku siiyay intaba. shaqsiyadda wanaagsan waxaad noqonaysaa qof dulqaad badan, waxaad noqonaysaa qof samir badan, waxaad noqonaysaa qof aan degdegin. waxaad leedahay shaqsiyad wanaagsan. shaqsiyadda wanaagsan lacag lagu ma helo,
جيم لا هذا لو مهله بودي لا سميست لو مهله وwaxa ilaahay qofka bilaadka siiyo maalinta hada qof shakhsiyada wanaagsan waxa taa qof habiya oo degan oo marxalad kasta qaabili kara laakiin marka shakhsiyadaadu aysan wanaagsaneyn waxa taa qof markaas wax oo heystay maalinta wax wanaagsan heysto oo kula faraxsay maalinta noloshu ay xumayso adiga un buu dabada kaamara marka ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay naga dhigo qof shakhsiyada wanaagsan baas lama gada karo lacag laguma gada karo wallahi billahi taala qofku ilaahay si unba ogaa kara qiimaha ay leedahay marka gabdhaha waxaan kula tali lahaa nin guur marka ay noqoto guurku waa wax aad u muhiim ah qofka kula nool oo gurigaada kugula nool oo ay isguursateen inuu ku fahmana waa wax aad u wanaagsan maalinta qof shakhsiyada wanaagsan oo gacantaada galo wad guuleysatay marka waxaan dhiirahay gabdhaha ninka ay guursanaysan kursiga ku fadhiya hal uga la aado haduu rabo ha gacmo la aado haduu rabo ha san la aado ha ilka la aado laakiin ma yahay qof shakhsiyada wanaagsan ma yahay qof naftaada naftiisa ka hormariya ma yahay qof horumarkaaga jecel ma yahay qof naxariis badan inta badan gabdhaha waxay dhahan naxariista badan waxay imaataa shakhsiyada wanaagsan qofku markuu shakhsiyada wanaagsan yahay oo qof dabci wanaagsan yahay waa qof naxariis badan marka جيم يا دلال يا هنتي أنفير هنتي دول لو يكره لك شخصية دو ناكسر مدامات جيم كانوا قف كان مرقيس ويدبع يكره لك شخصية دو ناكسر مدامات صاحب تلمذ ويدا ما كرت لك شخصية دو ناكسر مدام قف كصاحب كعلى النقطة حتى هدو قف شخصية دو ناكسية ما لنت عاد اسفهم ويسان صاحب تلمذ ويدا ماتو وقف وحون حيرية واقف سرها كو قريه واقف وحي وكا حافظه واي شخصيتي سو wanaagsan ayaa wax kasta ka celinayso dabareysa laakiin qofku markuu shakhsiyad wanaagsan oo salahayn waa qof qurmay amal wallahi haduu kugu soo aadana way adagtaa la noolaashihiisu waayo qofka shakhsiyada wanaagsan aanan heysano markas xaaladda uu ku jiro buu la socdaa waa kii ku ilo waa kii ka taga laakiin qofka shakhsiyada wanaagsan haduu calafkiinu dhamaado iyo hadii saaxiibtinimada dhamaato iyo haduu waayaha iyo waqti weyn kala wado weligiis waa qof aan ku iloobin marka weligaa qof shakhsiyada wanaagsan wax ku darso lana saaxiib shakhsiyada wanaagsan waa wax ilaahay bixiyo haduu ilaahay ku siiyana dayman ayaa taa qof ku gaari karta malahan qof ku gaari karta malahan wallahi gabadha shakhsiyada wanaagsan iyo wiilka shakhsiyada wanaagsan inaan adduunyada korkeeda lagu heli karin qofka helo aan waxaan dheela ku faraadeeg gabaray haduu nin shakhsiyada wanaagsan ku qabo waxyaalaha kale oo yar waxba ha fiirin qofka shakhsiyadiisa wanaagsan ayaa wax ka qaalisan marka maanta ereygaas ayaan soo xasuustay waxaana go'aansaday inaan la wadaago bal sidii waaragtiin isku fikir ma nahay isku mowqif ma nahay isku mabda ma nahay say waaragtay shakhsiyada wanaagsan waliga qof shakhsiyada wanaagsan adigu qof shakhsiyada wanaagsan ma tahay qarina daadan ahayn way ceeb ma shakhsiyada wanaagsan iyo dabciga wanaagsan ilaahabe shakhsiyada wanaagsan wixii hooyo iyo aabo u tahay dulqaadka iyo samirka iyo tanasulka shakhsiyada wanaagsan hooyo aabo waxay u noqotaa dulqaadka samirka iyo tanasulka adigu qof nooceeya tahay shakhsiyadaadu sawaa noocee marka aad xanaaqaysa maxaa ku fikirtaa muuqaalkii maanta intaas buu ahaa waxaan soo xasuustay eragaas waan in la wadaagantiina soo hor fariistay waxaan iga rajeynayaa inaad muuqaalka leegtiisiin waa iga mahadcelinayaa channelkii kor ayuu u kaca maasha Allah tabaaraka raxmaan leegtiisuna cirka ayuu u socotaa aniguna waan dadaalay adinkuna dabada ayaad iga riixaysaan aad iyo aad u mahadsantihiin weligaa noqo qof shakhsiyad wanaagsan xataa even hadaa adigu aadan ahayn qof shakhsiyad wanaagsan waxaad baadi goobtaa oo aad daydayda inaad garab iyo gaashan ka dhigto qofka shakhsiyada wanaagsan way weligiis ku macileenay even hadii waayuu waqtigu inay kala wadaan oo xataa saaxiibtinimadin iyo guurkiina ay dhamaatay cilaaqaadkiina dhaxyaal shakhsiyadiisa wanaagsan ayaa wax kasto qalad oo kugu sameeyay ka dabareysa aad ay u mahadsantiin inta muuqaalka ku kulmeen waa gabadhiini gacantaha oo in leh waqtigu haynay wacnaado gabdhahayga Soomaaliyeed maalin kasta waxa ilaahay inga baryaa farxad awaartino ilaahay nisiyo wadanka Allah noo xareey awlaada Allah noo koriyo guriyaha Allah noo xafti inta aan soo wanaagsan ilaahay oo san siin ilaahay wax ka baryaa inuu gabdhahan ilaahay soo wanaagsan siiyo qasooyin gaar marka arka waan ooya shalay qisadii aabahayna gabdha badan ayaa ilo ooya aabe gacalo hees markii aan dhageysto qaaladana qaadada ayaa u qeyrooda meelku marna ugu dhaqmo يا قلبي تقلبي باي باي.